This is Somsat News, the voice for all. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي حيسة ليد الهانتين بالداوديال غور كستا إيو غوب كستا آن نغا داونيسان كنا سو دوادا وروحي دالك إيو دافاه عالم كنا يسوق عليه warkano toddobaad kan idin kaga iman doona studio-ga Somsa TV ee magaalada London waxaan idin soo tamin doonaa anigoo ah Maxamuud Maxamed Xasan Maxamuud Boocabe qodobada wararkaya ugu door korona waxa kamid ah madaxweynaha jamhuuriyadda dalka Soomaaliya warqadda aqoonsiga ka qaabilay safiirka cusub ee u fadhin doona Soomaaliya dalka Imaaraadka Carabta ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya oo maalintii labaad ku sugan magaalada Kismaayo ayaa kormeer ku tagay qaybo muhiim ah oo kamid ah magaalada Kismaayo ciidamada ammaanka Somaliland oo xoog ku kala dareeriyay arday mudaharaad ka dhigaysay magaalada Hargeysa gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland Cabdiraxmaan Ciro oo maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa magaalada Sheffield ayaa kulamo la qaatay jaaliyada reer Somaliland ee ku nool magaalada Sheffield wafdi ballaaran uu hogaaminayo Garaad Jaamac Garaad Cali iyo wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Khaatumo Yaasiin Axmed Sulub oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Buuhoodle siyaasiga aadan maxamed xaaji aadan wali oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Gabiley daawadayalintaasi waxay ahaayeen qodobadii wararkayaga ugu door korona haatan ku soo dhawaada qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan balse intaan qodobadaas oo faahfaahsan aan u gudbin aan ku yaranasano qadar yar oo adeega bulshada